gudida qaadaan ururinta dhismaha wadada Garadag ayaa ku wareejiyay gudoomiyaha gudida qaadaan ururinta dhismaha wadada Ceerigaabo iyo gobolka Togdheer isku xilsaahan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan lacag dhan $55,000 Mareykanka iyadoo munaasabadii lagu wareejinayay lacagta gudoomiyaha gudida qaadaan ururinta dhismaha wadada Garadag Axmed Cali Baynax sidoo kale isaguna waxa ka hadlay Suldaan Carab Cabdi Cali iyo Jiif Aqal Cabdirashiid Ducaale Cilmi sidoo kale isaguna waxa halka ka mahad celiyay lacagtan ay soo gaarsiiyay gudida qaadaan ururinta dhismaha wadada Garadag wasiirka wasaaradda madaxtooyada ana gudoomiyaha gudida qaadaan ururinta dhismaha wadada Ceerigaabo ugu horeyna halka waxa ka hadlay Suldaan Carab Cabdi Cali hadaladiisina waxa kamid ah sida xagga iyaga u baqnaa waa taa laydii sheegay waa taa dabadiina ku qoran iyo tasoo socota biidnillah waxa kala idinkala macaamil doona gudida wadada qiimaynteeda iyo qarashkeeda ku shaqalay waxa kaloo ku faraxsanahay oo aan imtixaaniyad idinku dowladda iyo madaxweynaheeda ku siinayaa feejignaanta aa waddanka u feejigtihiin oo wax allaale wixii ka dhacaya within a second ku arka waxaan ka codsanaynaa cuqaasha iyo waayeelka maxaan ku raadayeen reer salaabeed iyo reer Togdheer inay qaadaankii wadada dekada u diyaargaroobaan cuqaasha iyo suldaamada reer Ceerigaabo waxaan maanta ugu dirayaa waan ballantii aynu galay kunkii neef boqolkii ku neef 2 milyan aaway lama hayo degmo kaliya ama caaqil kaliya wuxuu ballan qaaday soo maxaan ku raay toban wax ka keenay ma hayo madaxweyne waxaad noo diiwaan gelisaa degmadii ugu horeysay ee qaadaanka keentay aan degmada la mid ahay jirin inaan nahay dhammaadaan inaanu wareejino lacagta inta hadhayna ee wadadu waxaanu dareemaynay oo ogeyn inay wadadu socon doonto muddo inay socon doonto kulligana intii aanu saadaalinaynay runtii maanta way ka dheeraysa intii la saadaalinayay way ka dheeraysa waxaanu la dhammaynaynaa oo aanay ku koobnaan doonin contributionkayga iyo qaadhaankayagu intii aanu hore ugu $50 jeegeygii ayaan iminka wareejin doonaa waxaana ku wareejinaynaa wasiirka wixii saaran wadada mudane Xirsi Cali Xaaji wasiirka wasaaradda madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan ahna gudoomiyaha gudida qaadaan ururinta dhismaha wadada Ceerigaabo oo ka hadlay lacagtan ay ku wareejiyeen gudida dhismaha wadada Garadag ayaa hadaladiisa waxa kamid ah sida tan xoolaha iyo haday tahay dadaalka inta la ku maadsan yihiin reer Garadag waa tii lagu yaqaanay awrka labada la siiyay aan ku faanbaa inta tan uma reer Garadag wax maanta bilaabmay waa caadadooda aad iyo aad baan idinku amaanayaa runtii waxay ka horeeyeen oo ka degdeg bateen oo ka gacan bateen dad badan oo markii hore ku baaqayay oo lahaa waxbaanu bixinaynaa aad iyo aadna waa idinku hambalyeynaa wadadiina waa arkaysaa waa socotaa umada sayre TV-ga qaranka degmada Garadag.